السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن داوديال مeel kasto dunida ka joogtaan waa mar kale barnaamijkeeni mashruuca la dagaalanka nuurka waa mar kale iyo qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena la dagaalanka nuurka waxay noo joogtay daawadayaal isagoo sheegay Paul McMahon inuu 2016 ay soo weerari doonaan dhinaca bari ee Soomaaliland haddaba haddaynu sii wadno waxa uu yidhi waxa iluraya inaan ogaado sababta uu u rabo dagaalka bari anoo aad moodo in jiirku u damqaday dadkayga ayaan la soo booday waa kan dhacaya ee maxaa ilaa xadka muhiim idinku noqotay inaad weerarkan qaadaan Paul isagoo aan ii jawaabin ayuu eegay ergey kale wuxuu ku yidhi walaal beek ayaa ku furi doona bogaas beek ayaa hadalkii qaatay wuxuu yidhi waxaan ka fikiraynaa inaan isku beegno qaska Sanaag iyo qabsashada Qudus waxaan weydiiyey waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Sanaag iyo Qudus wuxuu ii sheegay markii ugu horeysay dunida inay ku guuleysteen faafinta jahliga iyo qarinta cilmiga dhabta qaar badan PhD iyo master ayaan dhabarka kaga qornay haddana cilmiga runta ah waanu ka qadinay way yar yihiin cidda taqaan cilmiga sida dhacdooyinka dhulku isku saameeyaan iyo muhiimadda dhuleed ee ka dhaxaysa Sanaag iyo Qudus qolada muslimka waxa loo sheegay in marka ay camiranto Qudus in Yathrib oo magaalada Madiina ay xirmayso sirtan waxa ay in kamid ah dadka awoodda laga ilaaliyo Paul McMahon waxa gabi ahaanba isbedelaya 2012 qorshe 300 oo sano noo shaqeynay way adag tahay inaanu maamulno xataa doqmihii wax walba waxay u shaqeynayaan si lid nagu ah ma garanayo siday wax u dhacayaan waxaan dalka ka soo degay anigoo sita buugaag badan oo falsafada oo ay qoreen rag ay ka mid yihiin Aristotle, Plato, Socrates, Hegel, Locke, Tolstoy iyo qaar kale badan kulamadii oo halkoodii ka sii socda ayaan buugaagta u qaybiyay dhalinyaro dhowr ah waxaan ku idhaahdaa erayo beerlaxawsi ah oo aan qalbigooda ku xadayo waxaan ugu yeedhaa balaatihii Soomaalida tahay waxaan dareemayaa inay qabgelisay waxaan si ogahay kuwa gashada kabaha falsafada iyagoon aqoon fiican lahayn inay galayaan bugti markii ugu horeysay qola aan dalka ka bixin ayaa baraha bulshada ku soo qortay erayo ceebayn ku ah asalka diinta Islaamka waxaana shaki galiyeen iimaankooda arintaasi ururku si weyn ayuu igu soo hambaliyay Paul McMahon ayaa ii soo qoray fariin gaaban oo aan wada fahmin waxa la gaaray waqtigii uu soo bixi lahaa boqorkii qarsoona fariintan markaan akhriyay ayay anoo arkaya ismasaxday iyadoo gubanaysa argagax iyo cabsi ayaan dareemay wadnahaygu gariiraya waxaan weydiiyey waxa fariintii gubay wuxuu ii sheegay in jinka heshiis ay kula jiraan oo arrimo badan ka wada shaqeeya qabiilooyin kala duwan ayay leeyihiin hadda reerka noo qaabilsan internetka waxa la yiraahdaa Zilla halka markuu marinayo ayuu ismaray oo ka cadhooday inuu sirtaasi dhaxko waxaan la xidhiidhay koonfurta anigoo doonaya inaan mashruuc ku fuliyo dhulka Soomaalida degto muqdisho hawsheeda wiil yar ayaan u diraya ayaan ku yiri Paul wuxuu igu yiri muqdisho waxaan u naqaan Vatican City marka wakiilo badan ayaa noo jooga halka ayaan kaga hadhay
oo waxaan ogaaday inaanan keli ku ahayn dagaalka dahsoon. Maalin dambe anigoo hudheel cunto ka cunaya ayaa nin baahan uuna soo dul istaagay. Waxba ma hayna ayaan ku yidhi. Wuxuu igu yidhi waxba ma haysid oo waa la hubaaye Muqdisho waxaa loogu magac daray Ismaaciil Maqaadish. Waa nin awliye reer Sheekh Isxaaqa, hawlihiinuna waa faashi. Naxdin ayaan qaaday. Cuntadii ayaa iga daadigi weydii. Habeenkii waan seexan kari waayey. Waxaan garwaaqsaday in ay jirto cid tallaabo kasta oo aanu qaadno og. Subaxii ayaan dalbaday wastaad leban ku xaniba daaqadda guriga aan ka deganahay Hargeysa. La soco qaybta 4 iyo barnaamijkeena mashruuca la dagaalanka nuur.